بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب يال marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan jecelahay inaan hal qodob isdul taago oo aan idinku baraarujiyo maanta. Qodobkaas wuxuu yahay arrin ku saabsan salaadeena. Hadii jeer salaada markaynu tukanayno dhammaantiin waan ismacaarsiinaa, waxaananu iska dhignaa in salaada la naga aqbalay, inaynu salaad soo tukanay, inaynu faral ilaahay leeyahay soo gudanay, inaynu garanaysaa qof kasta oo masaajidka ka soo baxay wuxuu soo haystaa inuu faral soo gutay. waxaana laga yaabaa maanta dhan markii uu weysaysanayay, markii weysada doono kayuu galay oo waqti dheer uu kaga lumay oo salaadii uu garanaysaa ka gaadhayba oo dee adigu uu tukaday oo waqti badan uu bixiyay iyo tamar badan, haddana salaadiisii wax lagama aqbalinba ayaa dhici karta. maxaa taasi sabab ah? waxay ka dhigan tahay qof maanta dhan shaqaynayay oo markii la isii mushaharkii u dira ama bil dhan soo shaqaynayay oo markii la isii mushaharkii u dira lagu yiri ma shaqayn falkawar oo hadda waxaan ka shaqaynayay maxaad ka shaqaynaysidii ma shaqayn baniyo bishaan dhan adiga iska watay waxaagee aniga shaqa adii haysay may jirin commission iguma lihid mushaharna iguma lihid saasaad falkawar waxyaabahaasa kaa horeeya waqtigan iminka la shaqaysanayo ee cibaadaadka leenoogu talagalay. waa qofkaa shaqaysanayo oo kale waqtigaasee bilbaynu mushaharka sugnaa, weegbaa qaar ku qaataan oo sugaan yoomiya qaataan. ka maanta oo dhan shaqaynaya yoomiyaha ku qaatay iyo dadka hudheelada iyo meelaha cuntada ka shaqeeya ayaa inta badan ugu badane, ama kuuliga iyo dadka dhiska ka shaqeeya. balka war nin maanta oo dhan shaqaynayo lagu yidhi maad shaqaynba maanta oo markuu gabalkii dhacay soo doontay lacagtiisii soo dirtay ma shaqayn. shaqadaada oo dhan macnaheedu waxa weeyaan waxba ka xumaadee, ama waxba iska gargaraacaysa, ama waxaan lagu dirsan baad wadwaday waad iska daalaysay, laakiin shaqadii aan ku dirsaday maal badan farsamo xumo ayaana kugu waanayd. adigu waa dadaash laakiin farsamo xumo way qodobka farsamo xumada dibadda istaagina. farsamo xumada inagu dhacdo maxaa ka mid ah? marka laga yimaado dee lahwiga inagu badan, yacni inaynu bahnade oo salaamu calaykum ku war helno oo aynu xisaabaad iyo iska galno arrimo gaara markaynu salaada xidhno. marka taa laga yimaado waa taa idinkuba ogtihiin. marka taa laga yimaado mid aydaan ogeyn, aydaan dhaadanayn, salaadiinuna ay waxba kama jiraan u tahay oo aan in badan arkay ayaan jeclayna dhallinyaradeena weliba waxay nagu badan dee imka waatan style iyo fashion waxaa laga sheekeeyo dharka yaryar baynu xidhanaa. dharkii waaweynaa ee berigii hore styleku wuxuu ahaa baa dharka waaweyn, maa soo gaadhin dee iyadoo dharka la waaweynaystay, laakiin dharka waaweyn ayaa la xidhan jiray. surwaalka cagaha balbalbalaarin jiray, intaa la leekaysiin jiray shaarar waaweyn, garban waaweyn. imkana dharkii waa lasku wada talaa. surwaalku saasuu kuugu dhegsay, shaarku saasuu kuugu dhegsay, garankii wuxuuba way nagu dhegsayiin. kadib maxaa dhaca? waad rukuucaysaa, xaggaa dambe o dhan shaarkii baa soo faydmaya ama garankii. waad sujuudaysaa, qofkiisi maba ogaba wuu iska sii wataa salaadiisii. wallaahi bilaahi tallaah waad naxaysaa. lendhan ayaad arkaysaa oo sujuudan marmarka qaar salaada kusoo gaadhaysaayo saf dhan baad arkaysaa 100 qof ku tukanayaano 90 markaan qiyaasay 90 ka mid ay sidaa yihiin aan salaadooda waxba ka jirin. salaada waa lendhan ayaa 10 qof 5 qof 3 qof caadi ka yihiin. dadkaasina waxay u badan yihiin kuwa saasi dadka waayeelka ah, dharka waaweyn xidha ee odayaasha gaboobay ah, iyo dad khamiis sita. waa inagu dadkan wadaadada u naqaanaa, waxaan u naqaanaa khamiiska wadaadoon xidho moogta
perception ka naga dhaadhacsan khamiiskuna hadda waa marada aad hubto inay salaadaadu ansax tahay haddii aad arkaantii kale iyo ruknadii kale buuxiso markaad maradaa xidhan tahay marka anfacaasha laga imaado waayo wax soo qaawismaya ma jiraan khamiiska dee khamiisku saa shaarhka maaha dee halkan kuuma jooga caguhu kuu jooga soo maaha iyo canqowga ayuu kuu joogaa sidaa daraaddeed ma soo faydmayadi soo maaha kamana baqan qabtid shaar kasta iyo garan kastoo aad xidhan tahay laakiin waxaa hubtaa inuu soo faydmayo marka qodobka aan jecelahay inaan u baraarujiyo dadkeenu iska eegaan hal bacaad lagu lisay salaadeena ka dhiga maalin walba qodobkaasaa ka mida waayo salaadu waa waxa keliya ee lagaa eegayo ee camaladaada oo dhan salaadaasi hadday hagaagto ay wada hagaagayaan salaadaas hadday xumaatana xadiiskii rasuulka sal allahu alay wasalam uu inoo sheegay salaadaas hadday xumaatana dee acmaasha kale oo dhan ay xumaanayaan marka salaada ma hagaajinaayo arrinkaa ma isku yara baraarujina oo weliba intiina muuqaalkan daawanaysaa asxaabteenna kalena ma loo wadaagnaayo ma ku baraarujinaa ma nahno waryaha wayn iska tukanaawne waxaan waynamaba socotee xataa ka isyara balqabtay salaada isir balqabo waxaan inta badan sameynaa waxaan ku mashquulnaa sidaynu soo celin lahayn shaarka ayaanu ku mashquulnaa oo miyuu soo ceshamaya kaa yaryidii aan khasbin ma soo ceshamayadii maantoo dhan saa wadoo dee waqtigaa xitaa inaad ku bixiso oo adoo salaad ku jira aad kolba maradaada sii fiidnayso saad dabada ugu hayso usoo qabato waa kayslays wanaaji ee isla salaadaadu yaani kaa burinay kaasoo xitaa salaadaadii taxarukaad iyo afcaal aan loogu talagelin oo salaada ku jirin baa dee intaa ku samaynaysa salaad xitaa saa lagaaga aqbali maayo de dhibaatada shaarka iyo garanka keeneen meela aragteen taasaan jecelahay inaan ku baraarujiyo muuqaalkana sii sheergareeya walaaladiin gaadhsiiya waa kelimada wanaagsani waa nasteexo sidoo kale kelimatu dayib sadaqa ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed waxaan jecelahay inaan naftiida iyo nafteedaba ku baraarujiyo arrintaas aadka inoogu badan ayaan jecelahay inaynu aada isaga ilaalino oo camalkeenna aynu ka dhigno camal la aqbalay oo waqtigaa aynu ku bixinay ajar u qalma laynagu siiyey oo laynagu abaalmariyey maalinta qiyaamaha haddii ilaahay ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu